Ladies and gentlemen, boys and girls, all Somali parties, welcome to Somali Star Online Training, full training and good behavior license, tutorial and full training. Contact Gmail, Yahoo, Hotmail and direct number. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa Somali Star Online Training iyo barashada casharada luqadda Ingiriiska iyadoo practical of the language loo waafajinayo waa injineer Maxamed Axmed Baray casharada imtixaanaha maanta waxaan qaadanaynaa laysankii labaad oo ahaa tenniska 12 tennis casharkii nooga socday laysankiisa labaad ayaan arkaynaa marka barashada casharada ku soo dhawaada dhamaan ardayda iyo dadweynaha Soomaaliyeed ardaydii hore u la socotay oo casharada online-ka lagu diro email-adooda ayaga casharadooda si gaar ah ayaa loo soo sameeyaa email-ada lagu dirayaa laakiin casharadan oo dadweynaha u dhaxeeya sida caadiga ay wada qaadan doonaan ayagoo internetka ka wada heli doono marka casharkeena maanta muxuu noqon doonaa waa casharadii aan ku qaadanaynay tennisyada 12 tennis marka casharkan laysan 1kiisu waa soo aragnay maanta waxaan arki doonaa laysan 2 saacad buu qaadano marka maadaama laysan 1 aan soo aragnay waxaan gudbaynaa laysan 2 marka laysan 2 baan arkaynaa kadib hore aan sii soconaynaa laysan 1 waa soo aqriyay kan waa soo aqriyay casharkan waa wada garanaysaan ardayda ku taxan informative maan aqrin word caadi ah soo ah word caadi ah soo aan ka bilaabayaa waxaan ku xijinayaa tenniska labaad inaan aqriyo marka he drinks milk he is lama dhahayo waxaa la isticmaalayaa word caadi ah iyadoo la isticmaalayo ayaa waxaa la sameeyaa waxaan qaadanaynaa waxaan ku jirnaa present waxaan ku jirnaa inaad soo xasuusataan baan dib idinku soo celinayaa waxaan ku jirnaa oo aan ka bilownay present tennis baan bilownay present tennis maadaama aan ka bilownay ma qaadan waxaan arki doonaa inaan asiga waafaqno present tennis baan ku jirnaa waa tenniskii koowaad he drinks milk wuxuu cabaa caano I learn English waxaan bartaa English she cooks food waxay karisaa cunno they eat a breakfast waxay cunaan quraac we drink much water waxaan cabnaa biyo badan halka hoos soo bax interrogative waa word su'aalo ah waa jumlad waa interrogative macnaheedu waa su'aalo laakiin waa weero su'aalo ah weero su'aalaha sida loo sameeyay marka sida tan is iyo r iyo am hore aan idinku soo sheegay casharka hore ku soo qaadateen laakiin das iyo do waa waxay bedeleen is iyo am does she play football ma kubadda ay ciyaartaa do I learn English ma English baan bartaa does she cooks food ma cunay karisaa do we drink much water biyo badan miyaan cabnaa waa su'aalo negative-ka muxuu ku imaanayaa he does not by imaaday he does not play football ma ciyaaro kubad I do not learn English ma barto English she does not cook food cunno ma kariso they do not eat a breakfast ma quraacdaan we do not drink much water biyo badan ma cabno annaga okay present continuous tennis present tennis baan soo baranay present continuous tennis waa tenniska labaad baan usoo gudagalay what is the present continuous tennis used for see loo isticmaalaa muxuu yahay it used for an action baan ku yidhi waxaa loo isticmaalaa waa ficil lacayo which kaasoo marka is going soconayo on now hadda at the moment isla daqiiqadan of speaking aan hadlayo it used waxaa loo isticmaalaa for an action which kaasoo waa ficil lacayo which kaasoo marka is going soconaya on now hadda at the moment daqiiqadan of speaking aan hadlayo soconaya give an example marka naga sii tusaale aan formula iyo qaacidadii waxa weeye marka noo soo hormartay subject plus is slash am slash r plus verb plus ing plus object intaas waxay isku tahay marka intaas waxay ka jawaabaysaa oo qaacidadii ah ayaa waxay ka jawaabaysaa waxay jawaab u tahay what is the present continuous tense example marka he is playing football wuxuu ciyaaraa kubadda cagta waa joogto he is asiga playing ing da waxay ugu jirtaa inay joogto tahay fal joogto la sameeyo football kubadda cagta marka kubaddii waa kan ninkii ciyaarayna waa kana laakiin waa joogto he marka qofkay u noqonaysaa marka is waa kii playing ciyaartii way la ciyaaray oo waa verb way ficilkii way ing na waa continuous bay u noqonaysaa footballna waa kubadda cagta oo objective lagu sameeyay way
hoos soo bax marka affirmative iyadoo weer caadi ah I am reading lesson cashir baan dhegeysanaya I am reading waxaan aqrinayaa a lesson cashir he is playing football wuxuu ciyaarayaa kubadda we are going to school baanu aadaynaa they are teaching you Somali waxaan baranaynaa Somali waan ka baranaynaa they are teaching waxaan baraynaa you Somali luqadii Soomaaliga ahayd baan anagu baraynaayo kale they are teaching Somali waxaan baraynaa luqadii ayaga ay luqadii ayaan baraynaa ayagu waxaan ku baraynaa Somali and she is listening waxay dhageysanaysaa to radio ayay dhageysanaysaa interrogative waa su'aalo am baa soo hormartay waa su'aal marka I hadday soo hormar lahayd waa caadi am I reading a lesson lesson baan dhageysanayaa is she playing football ma kubad bay ciyaaraysaa is she listening radio may dhageysanaysaa are we going to school baanu aadaynaa negative keedu waxa weeye marka I am not reading a lesson I am not reading ma aqrinayo a lesson cashir he is not playing football ma ciyaarayo kubad asigii we are not going to the school ma aadayno they are not teaching you Somali ma barayaan Somali she is not listening radio ma dhageysanayso waa noo soo dhamaaday hadda inta noogu eg cashirkii labaad ee tenniska ayaa halkaa inagu eg marka barashada cashiradii oo ahaa inaan ku barano laysankii labaad aan qaadano oo ahaa laysankeeni labaad tenniska ahaa ayaan halkaa ku qaadanay marka cashiradeenii iyo taxana ayaa noo soconayo waxaa very important ah marka laysankii labaad baan ka maraynaa tenniskii oo buuga tenniska 12 tennis plus grammar waxaan maraynaa laysankii labaad marka barashadii casharada taxanaha oo luqadda Englishka lagu baranayo waa injineer Maxamed bare contact marka waxa la soo xiriiri doontaan lambaradaas oo la soo xiriiri doontaan ayaa mar walba la soo xiriiri doontaan sida darteed waa aniga Maxamed bare waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh